magaalada Saylac waa mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee dalkeena iyo guud ahaanba Geeska Afrika kuna leh taariikhda fog. Waxay ka tirsan tahay gobolka Awdal waxaana ay ku taallaa xadka aan la wadaagno dalalka Djibouti iyo Ethiopia. Waa magaalo xeebeed ku taalla gacanka cadmeed iyo marinbiyoodka Baabilmandab halkaasi oo ah meel istiraatiiji ah. Magaaladan jihooyinka bari iyo waqooyi waxa kaga tirsan gacanka cadmeed halka dhanka galbeedkana uu ka xigo dalka Djibouti. Magaalada Boorama ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta kuna jirta ku dhawaad 245 kiiloomitir halka dhanka barina ay ka xigto magaalada Berbera oo u jirta 270 kiiloomitir. mudnaanta magaaladana waxaa siiyay in magaalada Harar ee qadiimiga ah ay u jirto wax ka yar 320 kiiloomitir. Waxaa la rumaysan yahay in taariikhda magaalada Saylac ay soo bilaabatay qarnigii 7 ka hor fiditaankii diinta Islaamka iyadoo oo la sheegay inay soo bilaabatay qormada magaalada xadaariga ah ee Saylac. dalmareenkii caanka ahaa Ibn Battuta oo yimid magaalada Saylac